Wacan oo wanaagsan daawade meel walbo dunida ka joogtid kusoo dhawow musalsalkii aad naga wada sugayseen iyo qof oo lunsaday canshiqa xalqadiisii 183aad oo maanta ah waana xalqada cusub. Haddaba haddii aad kanaalkeena ka cusub tahay fadlan subscribe saaro gambaleelkana ha ilaawin si musalsalada degdeg ugu soo dhacaan. Share dhe saaxiibtaada gaarsii dad badan ayaan ogeyn. Sidoo kale tana muuqaalka haddii aad ka heshid like inoo saaro maasan tahay. Xalqada waxay ku bilaabanaysaa meeshii ku dhamaatay xalqadii hore oo shalay ahayd markiisa ay murugisneed kana murugisneed warka loo sheegay oo ah in Firaad xabad ay ku dhacday isbitaalkana oo yeelo. Haddaba taleefankii ay ka wici lahayd waa dansan yahay, warkiina looma dhammaystirin oo looma sheegin isbitaalka magaciisa ama isbitaalka markaasi lagu daweynayo. Sidaa awgeed waxay wacday askarigii ay iyada taqaanay, waxay weydiisay isbitaalka uu joogo Firaad waa loo sheegay. Xalqada waxay ka bilaabanaysaa marka Firaad saayi oo murugaysan iyadoo dhehayso marnaba ma ogolaan karo Firaad inay wax ku dhacaan, marnaba ma ogolaan karo arrinkaasi. Degdeg ayayna kusoo bixaysay laakiin waxay wacday bulkid iyo reerkiisii si ay u ogeysiiso xaalka meeshuu marayo iyo dhaawaca Firaad soo gaaray. Dhinaca kaleeto qoyska Jafan sidii u wada dhan yihiin waxay soo aadeen dhankii isbitaalka, haba ugu horeeyaan Mohit, Ashwani, Baaqi iyo waliba Bafani. Markay goobtii imaadaan ay dadkii isbitaalka dhaqaatiirtii iyo askartii meesha joogeen bay wareysanayaan. Baaqi ayaa la hadlaysan in meesha taagnaa waxay leedahay Firaad aaway halkuu jooga xaalkiisana ka waran. Wuxuu dhahayaa adiga ma waxaad tahay Firaad xaaskiisa saayi? Markaas leedahay maya waxaan ahay saaxiibtiisa. Ashwani ayaa dhehayso Firaad xaalkiisa waa sidee? Baaqi idana way weydiinaysaa. Askarigii wuxuu dhahayaa iyo dhaqaatiirtii meesha joogeen waxay leeyihiin Firaad xabad ayaa ku dhacday. Askari kaleeto oo xabad loo waday ayuu isaga isku dhigay. Sidaa awgeed hadeer operation ama qalliin ayaa ku socdo. Xaalkiisana markuu qalliinka dhamaado ayaan ogaaneynaa haddii uu badbaadi doono iyo haddii kaleeto dhaqaatiirta gudaha ku jirta ayaan sugaynaa. Halkaasay marka oohin ka bilaabayaan. Ashwani iyo Bafani ayaa oynayaan halka Baaqi ay ka naxayso. Laakiin Mohit baa hadal dhahayo, wuxuu leeyahay waa inaan ku faannaa falka uu sameeyay Firaad sababtoo ah isagoo dalkiisa difaacayo, dalkiisa iyo dadkiisa isagoo difaacayo ayuu xabadda isku dhigay. Marka falka uu sameeyay waa fal aad iyo aad aan ugu faani karno. Dhab ahaantiina aniga waan ku faraxsanahay uuna badbaadaya walaalkii Firaad. Sida soo dhahaya Mohit. Odaygii Firaad calaacal bilaabay wuxuu leeyahay inkastoo aniga aan ku faraxsanahay falka uu sameeyay wiilkayga oo ah fal lagu faano qaran ahaan iyo wadannimo ahaan, laakiin haddana aabanimo markan u hadlo xanuun ayaan gudaha ka dareemayaa ayuu leeyahay. Xanuunkaasna cabsi ayaa la jirto, cabsidaasoo ah in wiilkayga iyo wax ku dhacaan amaba aan waayo. Haddaba Bafani ayaa waxay bilaabaysaa inay isla barbar dhigto Saayi iyo Baaqi, waxayna leedahay bal fiiri Baaqi waxa ay sameynayso. Firaad ay garabkiisa taagan tahay, way ka walwalaysaa, halkan ayay joogtaan. Wax walba iyo wado walba oo Firaad ku badbaadi kara ayay ku dadaalaysaa ayadoo markaas caafimaadkiisii rajaynayso. Laakiin aaway Saayi xaaskiisa ayay ahayd Firaad. Miyaad u jeedaan? Waa may. Miyay ka walwalaysaa? Waa may. Miyay jeceshahay? Waa may. Miyay ka taxadirtaa? Waa may. Haddaba ogaada Baaqi iyo Saayi inaysan isku mid ahayn. Waxaa u jawaabay Mohit, wuxuu dhahayaa hadalkan bilaa macnada ah, halkan kuma haboono, guriga ayuu ku haboon yahay. Meeshan waxaan u joognaa waa caafimaadka Firaad inaan markaasi dhammaantiin ugu duceyno. Waqtigii Saayi la jafi lahaa ma ahan ayuu dhahayaa. Ilaan wuxuu arkay mar walba inay iyada iska jeceshahay inay Saayi iska foodayso ama ay markaasi xagxagato. Marka wuxuu leeyahay Saayi xilligii aad xagxaganaysay lama joogay, guriga markaad tagtid iska xagxago iska jaf. Inta isbitaal weeye Firaad ayaa markaasi saalada qalinka saaran oo markaas aan u duceynayna. Dhinaca kaleeto Baaqi waxay leedahay aniga meel aan u baxay ma lahan ilaa Firaad uu ka caafimaado waan joogaya. Waxay sii muujinaysaa inay Firaad iyada ay aad iyo aad u jeceshahay, aad iyo aad ay uga taxadarayso, iyadana ay ka fiican tahay Saayi. saasay dadku usii muujinaysaa. Ilaan xoogaa laba kelimada ammaan ah bay Bafani ku turtay, hadaladii ay markaas kusii dhiiratay, laba baalal bay lasoo baxday gabadhii Baaqi ahayd. Haddaba Ashwani ayaa iyadana mar walba ku taagan, waxay leedahay looma baahna inaad halkan joogtid, cid kuu baahanna ma lahan.
wiilkayga Firaad aniga dhalay hooyadiis ah, aniga inta u joogo oo caafimaadkiisa ilaalinayo, adiga orod guriga iska aad. Baaqi waxay dhahaysaa haddiiba aan aniga kuu diidanayn inaad baxdid oo halkan aad joogtid aan jeclahay, maxay tahay sababtaad adiga halkan iiga diraysid? yacni anigaba kuma dirooyo oo joog baan ku leeyahay, hooyadiis baa tahay, sababtaad aniga bax ii leedahay maxay tahay? Ashwani waxay dhahaysaa sababtaan bax kuu leeyahay waxay tahay ma jecli inaad halkan joogtid. Ashwani waxay iska dhex aragtaba Baaqi aad bay u neceb tahay. wax yar kadib waxaana la tusayaa maama Ashwani oo dhehayso ugu yaraan xitaa inaan Saayi ogeysiino waa qasab, si markaasi ay u ogaato xaalka Firaad, inaan shibka ahaano waajibkiina ma ahan. markaas Bafani ayaa celinayso, waxay leedahay looma baahna Saayi in la ogeysiiyo ama taleefan loo diro ama loo sheego, sababtoo ah Saayi uma qalanto inay ogaato Firaad xaalkiisa. waa markaa lacalla waxaa macquul ah inayba xilligan ogaatay tiifiyada iyo wargeysyada ay ka akhrisatay, laakiin haddana wax jaxanjax ay naxariis ah uma muujinayso Firaad, kibirkeeda iyo xanaaqeedii ku taagan tahay. haddayba ogaatay mar horena maxay halkan u imaan weysay? bal hal isweydiiyo. Muhiid wuxuu dhahayaa aniga wacay Saayi, hadeer ayaan wacayaa, isagoo wicraba waxaa celinayo ninan oo ah Firaad aabiis. wuxuu dhahayaa Saayi Firaad uma qalanto inay halkan timaadana ma rabi, ee hawicna iga dhaaf. Muhiid wuxuu dusha sare ka arkayaa Saayi oo imaatay, laakiin Baaqi ayaa celinayso. Baaqi waxay leedahay Firaad lama kulmaysid, umana qalantid inaad Firaad la kulantid, xaaskiisa inaad tahayna uma maleeyo, sidoo kale tan xaq uma lihid, xaqii aad Firaad ku arki lahayd adaa iska loomayay kowdhe, halkan isaga tag. midda kaleetana Firaad dad badan inay la kulmaan looma ogolaanin, qoyska xitaa xubno yar ayaa loo ogolaaday. sida awgeed Saayi waxaan kuula talin lahaa meeshan inaad isaga tagtid, aniga kuuma fasaxayo inaad Firaad aragtid. sidaas waxaa dhehaysa Baaqi, waxayna ku dhehaysaa Saayi. Saayi ayaa u jawaabaysa Baaqi, waxay leedahay ugu horeyn i dhegeysa Baaqiyey, halkan gurigeeda ma ahan, ee waa isbitaal dowladeed ama isbitaal shacib dhan ay ka wada dhexeeyo. adigana iima diidi kartid inaan gudaha galo ama dibadda aan usoo baxo. midda labaad, aniga waxaan ahay Firaad xaaskiisa Saayi, inaan la kulmana bini-aadan dhulka ku nool oo iga hor istaagi kara ma jirto. haddaba waan la kulmayaa, waan la kulmi doonaa, waana sugayaa intaan ku sugayaa. waxaa soo boodaya Firaad aabihiis, wuxuu dhahayaa adiga halkan maxaad ka samaynaysaa? Baaqi waa runteed lama kulmaysid Firaad, sababtoo ah Firaad markuu kuu yimid inuu ku raalgaray oo kuugu imaaday, waad diiday inaad cafisid ama inaad soo raacdid. hadeer maxaad halkan kasoo doontay? waxaad marka Saayi difaacayo ninkii Bolkid ahay oo la jiray, wuxuu dhahayaa lamaano walba oo adduunka ku nool ama ku noolaan jireen way isku dhacaan, way iskhilaafaan, way murmaan, way dagaalamaan. haddaba dagaalkooda iyo murankooda kama dhigno in xiriirkooda uu burburay, dadku way isdagaalaan wayna heshiiyeen. haddaba Saayi iyo Firaadna hadday afka ka murmayn oo isdagaaleen, taasi macnaheeda maaha in xiriirkooda uu burburay. weli waa nin iyo xaaskiisa, cid kala geen kartaana ma lahan ilaa iyaga ay go-aansadaan inay kala tagaan mooye. markaas ayaa waxaa soo booday ninkii Muhiid ahay, wuxuu doonayay inuu Firaad Saayi la hadlo, fahamsiiyo xaalka Firaad, laakiin waxaa aamusiinayo Firaad aabihiis. waxyar kadib waxaaba meesha imaanayay dhakhtarkii oo saaladii qalinka kasoo baxay. wuxuu dhahaya qoyska Firaad ma tihiin? haa ayay dhahayaan. wuxuu leeyahay operationkii ama saal qalinkii waan ku guuleysanay, Firaadna waa caafimaad qabaa, laakiinse 12 saacadood ayuu u baahan yahay inuu kusoo naaxo, ilaan hadeer wuu suuxsan yahay. dhammaan waxay meesha joogo hadalkaas maqlay way ku wada farxeen. waxaa marka maadaama uu Firaad badbaaday, qalinkiina uu ka badbaaday, xabadiina waa laga saaray, wuu caafimaad qabaa laakiin wuu suuxsan yahay. 12 saacadood kadib ayuu soo naaxayaa ayaa la dhahay. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Muhiid wuxuu dhahayaa, isagoo Muhiid hadlaya oo Saayi la hadlaya baana la tusayaa. wuxuu leeyahay waan ogaa Saayi inay mar un imaanayso halkani. Saayi ayaa u mahad celinayso Muhiid, waxay leedahay waad ku mahadsan tahay Muhiid garabkaad isiisay iyo sidaad iila soo socodsiisay xaalka Firaad iyo inuu markaasi uu howlgal aaday. sidoo kale tan waan kaaga mahad celinaya wax walbood garab igu siisay, anigana Firaad inaan la kulmo cid ii diidi karta ma lahan. sidoo kale tan aniga ma ihi qof qalbi dhagax ah oo Firaad soo booqan waayay maanta oo kaleeto markuu dhibkan ku sugan yahay. waxaa hal mar naxayaan Baaqi iyo waliba Firaad aabihiis ninan oo hadalkan maqlayin.
ninan oo ah Firaad aabihiis ayaa qabsanaya Muhiid. Wuxuu dhahayaa yaa awood kuu siiyey Saay inaad u sheegtid in Firaad uu howlgal eeday ama dagaal uu eeday. Maxay tahay sababtaad ugu sheegtay? Saayidii diiday inay Firaad cafiso gurigana kusoo laabato. Sababtaad ugu sheegtay maxay tahay? Saay waxay dhahaysaa sababtoo ah aniga waxaan ahay Firaad xaaskiisa, inuu ii sheegana waajibkiisay ahayd. Midda kaleetana aniga sababtan guriga uga maqnaa, sidoo kaleetana aan guriga inaan uga soo noqdo diiday. Waad ogtihiin, idinka dhammaantiin ayaa iga caraysiiseen. Falkii aad samayseenna haddii inta aan kusoo tiriyo iyo waxaad Bulkid ku samayseen, wajiyadiina xishood iyo argagax awgiis ayaa dadka ka qarsan doontaan. Ay ha igu kalifina inaan aniga halkan ku daldalmo, sidoo kaleetana sirtiina iyo ceebihiina aan halkan ku kashifo. Waxaa idin fiican inaad hadeer booqa joojisaan. Isbitaal ayaan dhex joognaa, warka meesha lagu xiro. Baaqi oo fursad gaad ah ayaa soo boodayso. Waxay leedahay horta ugu horeen qoyska guriga kaama saareen, hal nin baa guriga kaa saaray, ninkaasna waa Firaad. Haddaba maxay tahay Firaad haddii uu guriga kaa saaray sababtaad adiga hadeer ula kulmaysid aad usoo booqanaysid? Waxay isku dayaysaa inay Saay kiciso oo ay Firaad ku dirto. Markaas Saay ayaa u jawaabayso weliba hadal kulul. Waxay leedahay Baaqi waxba ha ka walwalin, anigay Firaad waan isdagaalnay waran, laakiin ani isaga waan heshiin doonaa. Lamaano walbo isdagaalaana waa kuwii heshiiyo ama ha kala tagaan xiriirkooda ha burburo ama ha isku soo noqdaan, laakiin kor iyo hoos waa kuwii heshiiyo marka adiga waxba ha ka walwalin. Midda kaleeta aniga waxaan kaala yaabay mar walba nin iyo xaaskiisa maxaad usoo dhex gashaan? Afaarahooda maxaad u jeceshay inaad u ogaatid ama saddexeeye maxaad ugu tahay? Gaar ahaan aniga iyo Firaad maxay mar walba dhexdeena usoo gashaan? Waxaa kuu fiican inaadan dhexdeena soo gelin, midaasaa sharaf kuu ah. Ninkii Bulkid ahay Saay ayuu la hadlayaa. Wuxuu leeyahay wadadii ama qaabkii aad Firaad kula kulmi lahayd oo inaad raadisaa, sidoo kaleetan aad kula hadli lahayd. Intaas kadibna Firaad aabihiis ayaa banaanka wuxuu ugu yeerayaa Bulkid. Wuxuu leeyahay waan ogahay inaad Saay la jirto ood la heshiisay, kooxdeedana aad ku biirtay. Sidoo kaleetana waxaan ogahay inaad labadiina naga argoosanaysaan, weliba adiga argoosi aad wadatid adigoo Saay isticmaalaya. Bulkid wuxuu dhahayaa haddii hadalka dhinacaada aan u dhigo, waa run inaan Saay ku biiri kooxdeeda iyadana aan la jiro, laakiinse wax fiican ayaan kula jiraa. Ay xumaan inaan wada sameyno iskulama jirno, ay wanaagga qoyskan ayaan ka wada talinaynaa. Firaad aabihiis wuxuu la hadlayaa Bulkid. Wuxuu leeyahay aniga meeshan isbitaal ayaa la joogaa, ma doonayo buuq inuu ka dhashto. Waan ogahay adiga waxaad nagu samaysay, anagana waxaan kugu samaynay waan ogahay. Sidaa awgeed halkan Saay ka wad, adiga ayay hadalkaa maqlaysaa, waad u jeedaa waxay samaynayso. Saay waa inay halkan ka tagtaa. Bulkid wuxuu dhahayaa taasi suurtagal ma ahan, Saay halkan kama wadayo mana ka tagayso ilaa ay Firaad kala kulanto. Dhinaca kaleeta waxaana la tusayaa muuqaalka u dambeeyay xalqada weeye Baaqi iyo Saay oo isxagxaganayaan. Baaqi waxay leedahay Saay i dhageyso, 3 qof ayaa loo ogolaaday inay Firaad la kulmaan, marka halkan booskaaga ma banaano ee ord iska bax. Saay waxay leedahay Firaad xaaskiisa waa anigay, qofka saddexaad ee la kulmayso aniga ma ahan, mise waa adiga. Haddaba orodii adiga ayaa fasaxan, waad iska bixi kartaa. Aniga Firaad xaaskiisaan ahay. Firaad aabihiisna halkan ayuu joogaa, hooyadiisna way joogtaa. Saddexdeena keliya ayaa la kulmayna. Qofka afaraad waa adiga. Banaanka iska joog ama guriga iska aad, waad fasaxan tahay. Baaqi waxay dhahaysaa wallahi gabadhan way madax adag tahay, waa maxishooto, rajo beel ayaa hayo, marka waxaan ka baqayaa inay niyada ka jabto. Saay i dhageyso, aniga halkan kama baxayo. Firaad ayaa go'aamin doona cidda uu labadeena la kulmayo. Baaqi waxay dhahaysaa Saay waxay dhahaysaa adiga dumaashi ayaa tahay, aan naxaas ayaan ahay, sideen halkan uga tagaa marka? Haddaba dhakhtarka ma u wacaa oo ma weydiiyaan dumaashida iyo xaaska qofkee Firaad la kulmi karo? Dhakhtarka durbo wuxuu sheegayaa inay xaaska la kulmayso dumaashidana dibadda u baxayso. Haddaba dhakhtarka ma ku kala baxnaa? Baaqi waxay dhahaysaa waxaan ku kala baxaynaa Firaad markuu soo naaxo isaga ayaa sheegi doona cidda uu la kulmayo ama cidda uu ogolaanayo in la kulanto, aniga iyo adiga. Baaqi iyo Saay qofka uu la kulmi doono
ama gudaha uu soo fasixi doono. Firad ayaa sheegaya ay dhaysa baaqi xalqadan halkaasi ku dhamaanaysa. Haddaba Firad yuu ogolaan doonaa Masai ayuu gudaha usoo ogolaan doonaa mise baaqi maxaa ku dhici doona haddii say gudaha loo ogolaado. Masiirka laba jibaaran ayaa markaas i dareemi doonta iyo xanaaq weyn. Xalqada halkaasi ku dhamaatay, laakiin waxaan idin raacinaynaa goosgooska laga soo bandhigay xalqada beri la daawan doono oo ah xalqada 184. waxaana ku arkaynaa goosgooska ama hordhaca. Firad ayaa soo naaxo soo kacay. Baaqi waxay leedahay Firado bal fiirisay qasab ay halkan ku timid si adiga kula kulanto. Waa inaad u sheegtaa inay halkan ka tagto. waayo adiga ma doonaysid inaad wajigeeda aragtid, sida awgeed waa inaad fasaxda oo dirtaa. Baaqina waa Isaayina waxay leedahay mudana Firad, anigu inaan halkan ka tago inaan joogo isaga ayaa sheegi doono. Haddaba Firado miyaan baxaa mise waan joogaa, adiga un sheeg. waayo aniga waxaan u imaaday inaan kula kulmo. anigana waan hubaa adiga inaadan i direynin oo halkan aadan iga direynin ama bax aadan i dhihinin. sida awgeed su'aal ayaan ku weydiinaya. Su'aashaas waxay tahay miyaan baxaa mise waan joogaa. Su'aashaas ayay weydiisay. goosgooskana meeshuu ku dhamaaday. xalqada beri ayaan arkaynaa jawaabta Firad iyo waxa uu dhihi doono. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.